mahad ballaaran u celinayaa dhammaan madaxda dhaqanka beelweynta Axmed Sheekh Isxaaq waxaan gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhaweynayaa siyaasiyiinta iyo haldoorka aynu caawa halkan ku soo dhaweynayno xisbiga ku soo biiray ee ka tirsan beeshu hore xisbiga uga tirsanay laakiin waxaan soo dhaweynaynaa haldoorka ay ka mid yihiin brofesorada iyo aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo haldoorka beeshu sidaa la sheegay berigii hore dee koobiyey ka tirsanaan jirta laakiin maalintii ay noo keeneen xildhibaanka ayay si buuxda ugu soo biireen xisbiga iyagoon u kala hadhin kaftankii caaqabka laga sheegayna maalintaas halkaa ka yimid ducadii waxaa laga marag furayaa caaqilka jiifka ducaday maalintaa duceeyeen waa la aqbalayo waa runtiisa baarlamaankiina nambar 1 baanu galnay deegaankiina nambar 1 baanu galnay madaxweyne nambar 1 baynu gelinaa ducadoodu insha allahu maqbuulo wey waxaan shacbiga Somaliland oo ay ugu horeyso beesha Axmed Sheekh Isxaaq ku wargelinayaa inaan uga baahannahay inay maanta codkoodu la siiyaan si dalku u badbaado waxaan kaloo uga mahadnaqayaa inay ku dareen arrin aanay beelihii kale aanu la kulmaynay ku dareen oo ducadiina waanu ku darnay ducadana waanu u baahannahay واسلام مانتا شعب جوها هيستا فرصة سويها وي إنه عد كيسة مانتا يهي وحا بدلك مركا بتبدل كاس وكوي مرة يا عدك وحزبي أنا سيسان وشرح أنا سيسان رجال Somaliland maanta waxay ku soo ururtay in isbedel yimaado isbedelka shacbigu doonayna waxa ka dhawaday ka hogaaminaya xisbiga wadani waxaanu shacbiga u soo bandhigi doonaa dhawaan barnaamijkii siyaasiga oo ay ka qayb qaateen aqoonyahan fara badan والله قري هذا إنك بدك كنتر بروفيسور يا aqoonyahan daloli iyaguna way soo dhameystireen waa socdaan markaa qabiyatilkiisi insha Allah barnaamijka waxa ka mid noqon doona in hargeysa biyo hesho sida uu sheegay injineer baa uu soo dhaweeyo waxay u baahan tahay hargeysa si biyo cabto 1 مليون يبقى بقولك عشوه وريان 1 مليون يبقى بحرينا إن شاء الله تعالى وحانو إن شاء الله برنامج كنا ميستران نكسو بردقي دونا شعبية وحانو برنامج كدرين علمية باهيها كالدول دلك ويقول رئيسو بالدبادة قرنكو maanta Somaliland maalin ay uga baahi badan tahay inaynu gacmaha isqabsano oo mid noqono oo aynu meel u soo wada jeesano si qarankeenu u badbaado waxaynu ognahay Somaliland maanta duruufo badan baa ku sugan xagii bariga way ka soo ururtay xagga galbeedka qaylo badan baa ka jirta taa waxaynu kaga baxaynaa midnimo
waxaan u mahadnaqayaa dhammaan haweenweynaha halka ka soo qayb galay waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada ka soo qayb gashay waxaan u mahadnaqayaa qof kastoo inagala socda social media oo ina dhegaysanaya ama ina daawanaya waan kaga tegayaa guusha Somaliland insha Allah waxay ku imanaysaa inaynu isbeddelka taageerno Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland ha guulaysato